السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن دمانتين بميل البوتشوكتان كسو دوادا دودينا براروك وهبين كلا إيا كولان كلا مالميه اللي صور عفي اسبوعيدي اللي صور عفي نمانتين وحان مرقاتيكا هين دوده اني براروك اي كساب سنة أبارها إيا دقنينها لحريرة عاوة دودينا براروك وحي كساب سنتهاي sababta bulshada aysan isugu diyaarin marka ay helaan fariimaha digniinaha hordhaca ah ee abaaraha iyo fatahaadaha ka digaya mar kale aan ku celiyo doodeena caawa waxay ku saabsan tahay sababta dadka Soomaaliyeed aysan ugu diyaar garoobin qataraha soo socda gaar ahaan markay fariimaha ay helaan dood caawa waxa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Asad Cabdirasaaq waa wasiiru dawlaha beeraha iyo waraabka ee dawladda Soomaaliya علم النور وبيرلي waxa uu joogaa duleedka cadaado halkaas oo uu beeraha iyo calafka ka shaqeeyo Ahmed Maxamed hay'adda shaqadoon ayuu ka tirsan yahay waa qabiir arrimaha bulshada iyo la tacaamulkeeda muddo dheer ku jiray shaqadoonna waxyaabaha ay qabato waxa kamid ah wacyigelinta iyo waliba fariimaha dadweynaha loo diro saddexdiinaba ku soo dhawaada doodeena baraarug ee caawa waa nasabta Cabdirasaaq waa dhawax aad baad u mahadsantihiin intaan wax kale u gelin waxaan jeclahay mowduuc qodobkan si weyn u sharxaya inuu warbixintan ku soo koobo Abdifataax Cabdulle oo ah barnaamij soo saaraha dooda baraarug dhagaystayaal wali waxaa noo socda doodeenii asbuuclaha ahayd ee aan uga hadlaynay digniinaha hordhaca ah ee qataraha ka diga asbuucan waxaan ka doodi doonaa maxay yihiin waxyaabaha keena inaysan dadku tixgelin fariimaha qataraha ka diga ee loo soo diro isla markaasna aysan u qaadin wax tilaaba oo isdiyaarina Soomaaliya dad badan ayaa hela fariimaha ka digaya abaaro ama daadad soo socda haddana dadku fariimahaas ma tixgeliyaan oo iskuma diyaariyaan qatarta looga digayo si gaar ah dadka reer miyiga ah kuwa ka agdhow wabiyada iyo waliba hooyooyinka markii ay qatarta la kulmaan ayay isku dayaan inay wax un sameeyaan laakiin xilliga lagama gaaro oo ma ahan xilli laga baxsan karo sidaas ayayna qatartu ku saamaysaa bulshada haddaba caawa waxaan ka doodaynaa waxyaabaha keena in aysan dadku dheg jalaq u siinin fariimaha digniinaha ay helayaan waxaa doodeena qayb ka noqon doona khubaro ka socota dhanka dawladda bulshada rayidka ah ama beeralayda Soomaaliyeed iyo waliba hay-adaha isu xilqaamay in ay fariimaha digniinaha u diraan dadka shacabka ah dhagayste waxaan ka codsanaynaa inaad doodda ka qayb noqoto waxaan ka doodaynaa sida ay bulshadu iskugu diyaarin karto qataraha soo socda ayadoo la tixgelinayo ama laga faa'iideysanayo fariimaha digniinaha ah ee ku salaysan saadaasha haddaba codkaagu waa noo muhiim dhagayste maxaa keena inaysan bulshadu wax tilaabo qaadin marka loo soo diro fariin ka digaysa khatar soo socota aan mar kale ku celiyo dhagayste deegaanka aad ku nooshahay maxaa keena in aysan dadku wax tilaabo qaadin ayagoo helaya oo ay u soo dhacayso fariin digniina oo markaas khatar ka digaysa fadlan ra'yigaaga ama ogaalkaaga noogu soo dir lambarka gaaban ee 28 eber waxaad ka soo diri kartaa Hormuud iyo Goolis dirista fariintu waa lacag la'aan sidoo kale waxaad adeegsan kartaa Telesom haddii aad haysato waxaadna noogu soo dirtaa 395 dhanka WhatsApp-ka asagana cod ama fariin ayaad ka soo diri kartaa adigoo ku soo diraya xidig 2527 eber 66644 haddaad rabto in aad cod nooga soo dirto taleefankaaga waxaad wici kartaa 2 eber 23 waa lacag la'aan asaguna marka aad codka noo duubayso waxaad ku bilowdaa dooda baraarug waxaan la wadaagayaa markaas kadib ra'yigaaga iyo su'aashaada dhagayste maxaysan dadku wax tilaabo u qaadin ayagoo helaya fariimo ka digaya qataro saameyn kara noloshooda iyo maalkooda aad baad u mahadsantahay Abdifataax Cabdulle barnaamij soo saaraheena dooda baraarug ayuu kaasi ahaa waxaan jecelnahay in mar walba dhagaysta inta aan hawada ku jirno codkaaga aan maqalno wahagaag aan ku bilaabo marka Asad Cabdirasaaq waa wasiiru dawlaha beeraha iyo waraabka
ان سعاده وزير مدة هولهن لتعاليد ابارها iyo fatahaadaha ay wasaaradda ku mashquulsaneed gaar ahaan marka laga hadlo in dadka loo digo bal su'aasha ugu horeysa nooga jawaab sababta Soomaalida isaga dhigatirto fariimaha digniinaha ah waa maxay sababaha ay dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed aysan u qaadanin fariimaha loo soo diro si looga hortago khataraha waa su'aal aad iyo aad muhiim ah marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo in ay wasaaradda beeruhu ay fariimaha wacyigelinta ay gudbiso siyaabo kala duwan sida shirar wacyigelineed fariimo mobile ay ku dirto warbaahinta oo loo dhexmariyo shirkadaha isgaarsiinta sidoo kale iyo fariimo digniin oo sidaas oo kale loo mariyo nidaam la yiraahdo registered farmers oo beeraley annaga noo diiwaan gashan oo diiwaangelinta beeraleyda oo socoto taasoo isleenahay door weyn bay ka ciyaari doontaa ilaa iyo hadda 128,000 428 beeraley ayaa diiwaan gashan oo telefoonadooda iyo macluumaadkooda iyo beerahooda aan haynaa taasna waan u marinaa haddaba iyadoo waxaas oo dadaal la samaynayo maxay tahay 128 kuna wada jeedaa wasiir mise 128,402 beeraley ayaa noo register garaysan oo nu haynaa telefoonadooda iyo macluumaadka beerahooda oo dhan oo nu u marinaa hal fariin aan ugu diri karaa hal mar oo dhammaan gobollada dalka oo dhan ka kooban programkaas waa program la dhaho Safar Reeb oo hadda weli socdo oo lagu register gareynayo beeraleyda Soomaaliyeed waxaa muhiimadda ugu weyn waxaa weeyaan si sahal loogu gaari karo oo loo wacyigelin karo beeraleyda haddaba iyadoo waxaa soo dadaal la sameeyay waxaa muuqata sidaas sheegtay wariicatoosh in aysan dadkii weli aysan ka gaashaamanaynin oo aysan dheg jala qusiinaynin haddii aan eegno waxyaalaha ugu wacan kow waxaa weeyaan arrimaha amniga oo ah arrimo guud oo waddanka ka jira meelaha aysan dowladdu controlin ee ah remote area ee beeraleyda xoololeyda ku dhaqan kuma xira dowladda si toosa nimankaas mataqaanaa khawaarijta ayaa carqaladayn badan ku haya dadku say uga gaashaaman lahaayeen uga bixi lahaayeen waa midda koobaad ta labaad waxaa weeyaan capacity-ga dhaqaale iyo wacyi ee beeraleyda Soomaaliyeed iyo xoolo dhaqatada oo iyagana low oo aad u hooseeya oo mataqaanaa ay xataa xilli fog haddii la waxeeyo tusaale ahaan haddaan kasoo qaato kuwaba waxay dhex degaan beeraley webiga dhexdiisay degaan webiga markuu qalalo abaara ay jiraan fariimo kasta haddii loo diro inay si dhaqso ah ay uga guuraan webiga sayna biyuhu ugu imaanin waxay u baahan tahay capacity inay leeyihiin dowladdiina meelaha qaarkood ma gaari karto capacity la'aantoodaas xagga wacyiga iyo aqoonta oo iyagana hooseysa iyo dhaqaalahooda oo liito waxyaalahaas oo dhan marka la isku daro iyo arrinta duruufaha amniga waxay keenaysaa early warning response-goodu inuu aad u liito ayay keeni kartaa marka waxaas oo dhan la isku daray waa multi factor wax keeni kara arrintaas adoo ma santi wasiir waan ku soo noqon doonaa cilmi nuure waxaad joogtaa cadaado dabcan adiga waxaad uga duwanta dadka kale dadka ay qadiyadan qusaysaa tahay beeraad ka shaqaysaa beerihii haddana reer miyigaad haddana ku taxan tahay calafaad soo saartaa calafkii xoololeydaad ka gadaa maxaad is leedahay dadka way u qaadan laayihiin fariimahan loo soo dirayo walaal waxaa jirta si kasta oo Soomaalidu ay wax u sarbeebto wixii waxoogaa tari waayeen runtaa sheegaynaa waxay tahay runtu dadkan inta badan miyiga degan sababta aysan digniinaha u dhagaysan waxay tahay wax ay qaban karaan aan la arag qof baralis haddaad tiraahdo ka carar meeshaan haddaadan mar u shan togayn waxba ma cararayo wuxuu leeyahay niyow maradan madaxa saaranaa saan u dhintaan arkayaa dadka iyo dowladnimada iyo systemka dalkeena ka jira iskuma xirra iskamana warqabaan dadka waxa weeye macnaheedu waxay tahay marka waxay kala doortaan dadku oo ay yiraahdaan masiibaa la sheegay halkaasaa nabada halkaasaa barwaaqaa lama arko meeluu qofkana degan yahay miyiga aqal yaroo cawsha uga dhisan
tiro ariyaa u joogta ratiyaa u jooga tuulay wax ka soo qaataa waxaa la yidhi roobka waa la waayey masiibaa soo socota abaara wuxuu isweydiinayaa maxaad ka bedeli kartaa marka sababta dabtu diniinta u qaadi waan waxay tahay dadku wax ay kala doortaan oo ay ku bedela karaan abaarta la sheegay ama daadka la sheegaysan hayn taas waa qodob waa miyigii hore miyiga kale ee hadda aan samaynay ee ku saabsan inba laga gudbo marxaladan waxa weeye aniga tusaale ahaan waxaan u jeeday in roobkii la waayey iyadoo xoolihii dhaleen ayagoo caata ah ayagoo meeshii dhooban ayaa roobkii la waayey maradan dhexda ku xirannay dee imkaaniyaadan hayey aan ku dhaqaaqi karo oo ah inaan biyihii diyaarsho inaan cawskii diyaarsho inaan cunadii xoolihii u diyaarsado idihii waan kala xareeyey waan kala soocay waxaan u diyaar garoobay aan 6 bilood oo kale sii laqayo sidaa darteed waana dad naadira dadka fursadaha noocaas oo haystaa waana yar yihiin laakiin ummadda guud ee abaarta hadda saamaynta ku yeelanayso adeeru qof xirxiran oo lagu haya gacnaha ka xiran haddaad tiraa colaa soo socda oo telefoon ugu soo dirto wuu kuu naxaa wuxuu ku leeyahay maxaad igu sheegtaa waxba kama qaban kara aniga haddaadan mar lahayn ta u timaado waxaana dhacay waxaana soo socda waxaana laga baqayaa sidaa darteed waxaan yeelanaynaa sidan tusaale ahaan dowladda dhexe ay qabato si sax ah dowlad goboleedyada oo caqabad ku noqda Soomaaliya horumarkeeda hadda oo ah dowlad dhexe oo dowlad kale iska dhigaysa oo aan wax ka gudbayna la arag wax ay dad tarayana la arag in inta la meeting gareeyo oo madaxweynaha Soomaaliya laga soo bilaabo ilaa Beetoniga ugu hooseeya ummadii abaaraha ku soo socotay maxaa la yeelaa inta la isweydiiyo oo analysis la sameeyo go'aan la qaato go'aankaasina qofka reemiga loo yimaado la yiraahdo abaaraha dhacaysa saa darteed sidaan iyo sidaana la yeelayaa waxaanad haysatay waxaana lagu keenayaa calafkaana lagu keenaa cunadaana lagu marka nuxurku wuxuu yahay aan soo gabangabeeyo adeerow dadkana abaarta haddii loo digo iyo haddii loo sheego dowladnimadu maaha wacyigelin ee dowladnimadu waa in dadka loo shan togo oo intaysan soo barakicin lagu celiyo barinkooda intaysan dhiman la quudiyo intuusan xooluhu ka dhiman loo ilaalsho dowladnimadu waa sidaas systemkaas isaga ah ayaa dhexda ka go'ana baralis ayaan ku jirnaa waa mahadsantiin aad baa mahadsanta cilmi nur ha iga tegin waan kuu soo noqon doonaa dhegaystaha wuxuu soo diray comment ama fikir facebooka kusoo dhiibtay cadnaan maxamed baa la yidhahdaa buu yidhi muqdishaan joogaa dadka fariimaha waxaysan u qaadanin buu yidhi quursi iyo dadka soo diraya oo aan la aqoonin marka uu fariinta soo dirayo aad baad u mahadsanta waa fikir uu ninkaasi soo dhiibtay dadka soo diraya fariimaha ayuu yidhi waxaan jeclahay shaqadoon inaan u baaqo shaqadoon soo dhawow axmed maxamed oo muddaad la shaqaynaysay ama la macaamilaysay dadkan fariimaha dira oo aad u dhexaysay macaamiisha fariimaha loo dira hermiye hadday yihiin iyo beeraleyba maxaa adiga kuu baxay cabdirasaaqow aad baad u mahadsan tahay akhyaarta kale ee doodda igula jirtana waa salaamaya wasiirka wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka asad cabdirasaaq iyo cilmi nuure labadaba runtiina waa ku faraxsanahay inaan doodan aan ka soo qayb galno oo aragtidayada aan bulshada la wadaagno cabdirasaaqow waxyaabaha aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyaan ama aan u arkay aniga inta dooda socotay iyo inta badan marka bulshada lala macaamilayaba waxyaabaha soo laablaabta marka laga hadlayo bulshada inay maaragtay digniinaha hordhaca ah ay qaataan ama ay ku hawlgalaan lana xidhiidha hadda soo jeedinta qofka commentka uu soo dirayey iyada laftigeeduna door ku leh waxa weeyaan waa horta waa aaminaadda fariinta la helayo inay dadku aaminaadda intee leeg bay ku qabaan taasi waxay inta badan mar walbaba suurtagal ka dhigtaa dadku inay aaminaan oo ay ku talagalaan xogta ay xambaarsan tahay fariintaasi si maaragtay iyaga laftigooduna ay ugu diyaar garoobaan oo ay xogtaas u aaminaan marka inta badan haddii ay fariintu ay noqoto midaan maaragtay meesha ay ka timid aanay dadku aqoonin iyadana laftigeedu waxaa laga yaabaa inay suurtagal noqoto inaanay dadku markaa ku hawlgelin marka kalsoonidu inta badan waxaa xoojinaya markaa dadku inay aaminaan fariimaha aan isleeyahay waxa weeyaan waa cidda soo diraysa iyo cidda gudbinaysa labadaba waa laba isku xidhan cidda soo diraysa haddii la yaqaano cidda bulshada u gudbinaysana la yaqaano waxaa dhacda bulshada inta badan inay ku dhiiradaan oo ay qaataan fariimaha laakiin haddii labadaba la waayo oo fariin iska socoto iskeedu socoto ay ku soo dhacdo waxaa laga yaabaa dadku inaanay kalsooni badan ku qabin xogta la soo gudbinaya meesha ay ka timid
arrinta kale aan isleeyahay iyadana waxay suurtagal dhigtaa dadku inaanay digniinaha hore u qaadan waxa weeye fariinta la gudbinaya fahamkeeda oo fariinta laftigeedu haddii aanay caddayn oo xogta ay xambaarsan tahay ay noqoto dadku mid aanay fahmi karaynin iyada laftigooduna waxaa laga yaabaa inaanay suurtagal ka dhigin dadku inay go'aan qaataan oo ay aaminaan xogta ay xambaarsan tahay tusaale ahaan haddii fariintu ay ka hadlayso oo kale in webiga uu biyihiisu kor u kacayo tusaale ahaan 3 mitir in ka badan intii hore caadada ahayd waxaa laga yaabaa inay kelmad maaragtay fariintaasi ay xambaarsan tahay oo keliya inuu kordhayo xaddiga webigu laakiin waxay u baahan tahay inuu fahmo qofka webiga agtiisa degan haddii uu webigu gaadho xaddigaas uuna hore u gaari jirin maxaa ka dhalan karaya oo iyadana aan isleeyahay inta badan fariimaha haddii lagu xoojiyo waxaa laga yaabaa dadku inay fahmaan marka fahamka iyo sida ay fariinta u caddahay iyadana waxaa laga yaabaa dadka inay ku dhiirigeliso inay qaataan si kalena haddii loo yidhahdo haddii ay caddaan weydo iyaduna suurtagal maaha dadku inay qaataan waxay ku dhiirigelisaa inaanay dadku maaragtay ku dhiirin oo aaminin xogta la xambaarsan tahay taasina waxay keentaa dadku inay khatar la sheegayey aanay u arkin khatar kadibna ay la kulmaan caqabadaha waxyaabaha kale ee iyadana xoojiya dadku fariinaha inay aaminaan waxaa ka mid ah inay dadku khibrad u leeyihiin ama ay dhacdooyinkan oo kale ay hore usoo arkeen oo fariimo sidan oo kale inta loo soo diray xambaarsanaa digniino la xidhiidha abaara ama daadad la arkay oo kadibna ay dad ku waxyeeloobeen iyaduna waxay suurtagal ka dhigtaa dadku inay aaminaan oo ay yidhaahdaan dhacdadani waa dhacdadii shalata la sheegayay ee dhacday ee soo laabatay marka iyadana khibraddaas iyo waayo-aragnimada ay bulshada u leeyihiin ee inta badan la xidhiidha taariikhaha dhacdooyinka deegaanadooda la xidhiidha waxay suurtagal ka dhigtaa dadku inay hore u aaminaan nooca fariin ee ay xambaarsan tahay fariintaasi waxyaabaha kale ee cabdirasaaq oo isagana aadka u muhiimka ah iyadana aa muhiima in maaragtay wasiirkuna uu taabanayay ninka la yidhaahdo cilmi nuurana uu taabanaya waxa weeye haddiiba ay khatari jirto maxay bulshadu qabsan kartaa sidee bay khatartaa u wajihi kartaa maxaa tallaabooyin oo ay qaadi karaysaa fariimaha la diraya haddii aanay tallaabo noocaas oo kale ama xogo noocaas oo kale iyadana aanay xambaarsanayn oo sheegaynin bulshadu sidee bay ugu diyaargaroobaysaa khatarta la sheegay sidee maxay tahay tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan qaab nooc ma ah bay isu abaabulayaan xaggee bay aadayaan waxyaabahaasoo kale haddii fariimuhu iyaga laftigooduna aanay ka jawaabaynin dadku waxay u arkayeen oo keliya xogta imanaysa inay noqoto xog ku kooban oo keliya inay khatar sheegto laakiin aanay la soconin oo aanay xambaarsanayn tallaabooyinkii xigi lahaa haddii khatartaasi ay dhacdo maxaa la yeelaya ama xaggee la aadaya inay taasina iyadana ay caddaato oo iyadana aan isleeyahay waxyaabaha xooga u saara ayay ka mid tahay waxyaabaha kale iyadana cabdirasaaq oo muhiimka waxa weeyaan bulshadu inay ku kalsoonaato xogta la qaadanaya waxaa kow ka ah waan isleeyahay iyadana waa muhiim oo qaybahan la xidhiidha waxa weeyaan sida qaabka loo gaadhsiinayo bulshada xogta inta badan waxaa laga yaabaa in fariimo qoraal ah oo kale loo diro bulshada qofka aynu ka hadlaynay ee jooga tusaale ahaan tuulo helitaanka xogaha maaragtay la xidhiidha xogaha danabaysan ee isticmaalka tusaale ahaan moobilada oo kale ay ku yar yihiin haddii fariimo qoraal ah loo diro oo aynu qiyaasi karayno inuu aqaarsiiso ama aqoontiisa heerka ay gaadhsiisan tahay waxaa laga yaabaa qoraalka loo diraya inaanu fahmin oo aanu arag xogtani xog macno leh oo ay leedahay laakiin waxaa dhici karta inuu kaga kalsooni badan yahay haddii idaacad ama radio laga sii daayo xogta oo digniinahaas ay dirto marka iyadana marinada iyo qaabka xogaha loogu gudbinayo bulshadu iyadana waxay qayb ka qaadataa bulshadu inay aaminaan maaragtay xogaha iyo fariimaha ay helayaan waxa kasoo baxaan ay u diyaar garoobaan arrinta ugu dambaysa cabdirasaaq oo iyadana muhiima waxa weeye maaragtay aragtidayda marka waxyaabahan aan ka shaqeynin inta badan waxa weeye bulshada laftigoodu inay isu diyaariso iyadu keliya maaha dowladdu waa waxa ugu dambeeya ee dadka saacida laakiin waxaa la rabaa diyaargarowgu inuu ka bilaabo heerka ay bulshadu markaa joogto marka iyaga laftigooda marka ay digniinaha iyo xogaha ay helaan waxa muhiima iyagoo kaashanaya hogaamiye dhaqameedyadooda culimaa adduunkooda dadka bulshadu ay wax ka maqasho maamulada deegaanadooda jooga inta la isu yimaado in la yidhahdo khatarahan ayaa deegaanadeena kusoo wajahan sidee bay si aynu uga bixi karnaa ama uga gaashaaban karnaa maxay tahay tallaabooyinka aynu qaadi karnaa iyadana inay bulshada dhexdeeda ay ka timaado aragtida bilowgeedu kadibna ciddii ay caawimo ka raadsanayaan markaas ay raadsadaan laakiin aanay noqonin waxa ugu dambeeya ee la raadiyo inay timaado tallaabada dowladdu waa run haynta iyo dhaqaale yaraantu saameyn waxay ku leeyihiin inay dadku hore uga baxaan meelaha ay khataraha lagu sheegay laakiin haddana waa muhiim bulshaduna inay diyaargarowgeeda ay la timaado marka guud ahaan walaal intaasoo laysku dardaray ayaa waxaan isleeyahay waxay labadaba suurtagal ka dhigtaa inay dadku aaminaan xogaha ay helayaan ama sidoo kale inaanay fariimaha ay helaan aanay ku go'aan qaadan oo ay aamini waayaan waa hagaag aad baa u mahadsanta waxaan jeclahay inaan dadka xasuusiyo baraarug baad dhegaysanaysaan waa dood aan abaaraha oga hadalno isbuucyadii lasoo dhaafayna aan si fiican abaaraha iyo fariimaha hordhaca ah
fadlan fariinta gaaban noogu soo dir 280 golis iyo hormuud baad ka soo diri kartaa waa lacag la'aan markaad fariinta soo dirayso su'aasha caawa aan dadka u bandhigaynana waxay tahay bulshadu maxaysan isugu diyaarinin marka ay helaan fariimaha digniinaha ee ka digaya abaaro iyo fatahaado soo socda waxaan jeclahay dhegaystayaashii idaacadaha naga dhegaystay ee su'aalaha aan weydiinay fikrado iyo jawaababa way ka soo gudbiyeen qaar ka mid ah inaan halkan ka akhriya ayaan jeclahay qofka ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay ee fariintiisa noo soo gudbiyey ee idaacadihii Soomaaliya aan ka sii daynay barnaamijkan ku soo gudbiyey wuxuu yiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaykum assalaam baan leeyahay waan fahmaynaa hadduu yahay afka naloogu soo gudbinaya ayuu yiri fariinta la soo dirayo digniinaha ah af Soomaali ha lagu soo gudbiyo laakiin afafka qalaad ma fahmi karno ayuu yiri hadal buu raaciyo wuxuu yiri waxaa fududayn kara in la fahmo oo bulsho kasta inay afkeeda fahanto in luuqadooda loogu soo diro digniinaha waxaanan adkaynayaa in bulshadu ay isu sii gudbiyaan digniinaha wahgaan dhegaysto kale oo isna su'aalihii aan weydiinay ka soo jawaabay wuxuu yiri macluumaadka si fudud ayaan u fahmaa aniga laakiin dad badan way ku adag tahay wayna jiraan buu yiri dad aan fahmi karin waa inaad xulataan erayada bulshada ay fahmi karto marka fariinta la soo qorayo aad baad u mahadsan tahay wuxuu weliba sii raaciyey waxaan ka dhigay macluumaadka si fudud in loo fahmo ama adkaynaya waa hadba ay sida dadku fahamka dadka u kala sarreeyo aad baad u mahadsantihiin si fiican oo qurux badan ayuu hadalkaasi u dhigay mar kale waxaan idinku baraarujinayaa inaan helno fariimihiinna inta aan ka gaarnana halkan ayaan ka akhrin doonaa adiguna hadda fariin waad noo soo diri kartaa adigoo lambarka gaaban isticmaalaya 28 eber sidoo kale Facebook ahaan ayaad qoraalka halkan noogu soo dhigi kartaa shaqadoon ha iga tegin waan kuu soo noqon doonaa balse wasiir cabdirasaaq aan rabaa inaan ku noqdo sacaadatu wasiir beerahaad muddo ku dhex jirtay muddo 4 sano haddayba ka badnayn yaad wasaaradda wasiiru dawlad ka ahayd beeralayda la macaamilaysay fatahaadaha iyo la macaamilaysay maxaad u malaynaysaa inay go'aamiyaan in dadku ay tallaabo qaataan si ay isu diyaariyaan waa marka ay fariinta helaan oo abaarna laga cabsi qabo maxaa qofka ku kallifi kara ama ku qaadi kara inuu go'aan qaato asad cabdirasaaq su-aasha ah maxaad qofka ku keeni kara inuu go'aan ku qaato fariimaha loo soo diray inkastoo oo laga dhawaajiyey fariimahaas fahankooda iyo xataa haddii uu fahmo oo idaacadaha waa la mariyaa waxaan u malaynayaa wasaaradda ka sokow hay-adaha caalamiga ah ee beeraha ka shaqeeya iyo kuwa maxalliga ah labaduba fariimahooda uma malaynayo inay af qalaad ay ku diraan waxay ku diraan afka Soomaaliga ah fahankana waa la ogyahay oo burburkii wixii ka sokeeyey af Soomaaliga qoraalka isticmaalkiisa iyo akhriskiisa hoos ayuu u dhacay taas waa la fahmi karaa xataa dadka magaalada ku nool iskuulaadka galay fahankooda iyo qoraalkooda af Soomaaliga aad buu hoos ugu dhacay laakiin hadiiba ay fahmaan oosan ka oosan waxba ku qaadanaynin go'aan aysan ku gaaraynin waa la wada taabtay waxay ka mid tahay wacyiga beeralayda ama xoolo dhaqatada oo hooseeya duruufta kale ee ah in duruuf dhaqaale ay jirto oo ay kaga jawaabaan wixii xitaa inkastoo la yiraahdo beeraha loo jawaabo cilmi nuura uu ka dhawaajiyey dhaqaalahooda ayaa yar sida looga gaashaaman karo maybe inay fahmi karaan abaar soo socota inay calaf beertaan inay biyo helaan waxyaalahaas oo dhan laakiin dad yar oo kooban ayaa taas awoodi kara marka xagga awoodooda dhaqaale waa qodob weyn oo muhiima oo ku jirta meesha talabaad wacyigooda iyo baraarugooda iyo aqoontooda oo beeralayda mataqaanaa intooda badan hooseysa dadka mar kaste ay ku dhacdo dhibaatada u badanna waa kuwa ugu markii hore ugu dhaqaalo yaraa uguna mataqaanaa aqoon yaraa waxaa kale oo iyadana factor qodob weyn ahoo isbeddel weyn keenay dadkaas reer miyiga ah cimilada isbeddeshay ayaa waxay keentay inayna saadaalin karin inta badan oo qaabka ay yaqaaneen
ay wax badan iska bedeleen cimiladii iyo xilli roobaadkii hadda waxaan ku jiraa bisha maarso guga waxa ay badanaa ay dadku ay filayeen inuu curto abriil weliba dhexdeeda laakiin roobab badan baa maarsa dhexdeeda da'ay roobabkaas naftirkooda isbeddelka cimiladu wuxuu keenayaa in roobab dabeelo wato oo aad u badan oo xilli yar oo kooban da'a oo daad iyo mataqaanaa nabaad guur oon keeno oo dadku aysan ka faa'iidaysan karin awal waxay u barteen xilli guga way yaqaaneen 3 bilood oo roob oo baahsan oo roob da'o oo sida loo gaashaanto ay yaqaaneen daadadkaas oo kale isbeddelka cimiladu isaga naftigiisu wuxuu ku keenay dadkii in ay cimilada ay keentay nidaamkii ay yaqaaneen oo wax iska bedeleen marka in loo bedelo totally qaabka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda in loo bedelo nidaam degan oo mataqaana u adkaysta abaaraha iyo fatahaada iyo waxaasoo dhan u adkaysta oo biyaha hela wasaaradda beere ahaan annagoo taa ka duulayna waxaan samaynay nidaam la yidhaahdo initiative la yidhaahdo BBS beero oo barwaaqo gaad nidaamkaas waxaa weeye qof kasta oo beeraley in laga caawiyo inuu ceel xoolo yar beer in intaas uu helo oo nidaamkii oo xoolaha ay guurayeen oo meel inta ka guuraan meel kale biyo ka raadsanaysaan loo bedelo haddii aan beeraleyda iyo xoolo dhaqatada agropastoralka aan nidaamkaa loo guurin xoolaha waddankeenna khatar bay ku jiraan iyo beerashadaba jawaabta laakiin aad si khaasa aad ii weydiisay su-aasheeda ee ah maxay dadka u jawaabi la'yihiin anigu waxaan ku soo koobi karaa inay tahay aqoonta dhaqaalaha iyo baraarugsanaanta wacyiga dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada inay tahay aad baad u mahadsan tahay wasaaradda beeraha haddaan tusaale kaaga soo qaata yar adoo raalli ah haye wasiir ku soco asad waxaan samaynay call center qofka beeraleyda ihi oo number 507 hadduu soo garaaco ama xoolo dhaqatada ah wuxuu ku soo dhacayaa call centerka wasaaradda kaas oo khubaro ay joogto oo ka jawaabta wax allaale wixii mataqaanaa su-aal ay qabaan hadday ahaan lahayd abaaraha cimilada xilli roobaadka cudurrada bacriminta macluumaad baahsan oo mataqaanaa kala duwan looga jawaabayo oo call center oo shaqeeya mataqaanaa 6 casho from 8 to 5 shaqeeya oo mataqaanaa lagu wacyigeliyana loogana jawaabo mataqaan baahiyahooda waa mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan u baaqo abshir kaba yare oo khadka ku jira abshir soo dhawaa xaggee joogtaa su-aasha aad martida u qabto maxay tahay tahay catooshow waa mahadsantihiin waa idin mahad celinayaa anigu iyaroo commentigana waan raacinayaa su-aalna waan qabaa commentiga aniga waxay la tahay su-aasha jawaabteedu inay tahay filashada dadka bulshada ah ay ka qabaan ama dowlad ha noqoto ama hay-adaha ha noqoto ayaa waxaysan ahayn mid wax wanaaga dadku aysan ka filaynin oo aysan dowladihii iyo hay-adaheedii ama ha noqoto wax burburku abuuray oo ah ka aamin xil-la-aan laga aamin baxay dowladnimada iyo servicekeeda iyo waxyaalahaas hay-adaha oo kale oo laga aaminsan yahay dadka wax ku dulcuno oo saas oo kale aan dadka aydan u haynin marka waxaan isleeyahay waa fahamkaas khaldan oo bulshadu ay ka qabto maadaama aan saa qabo su-aasheedu marka waxa weeye sidee qofka hooyada ah oo miyiga beledweyne ku nool ugu qancin karnaa loogu qancin karaa wali wasiirkan weydiinaya su-aashaas dowladdu inay tahay shaqaale u shaqaynaya ayaduna marka ay ku qanci karto fariin kasta oo ka timaada inay tahay wax yada danteeda maxsantii aad baad u mahadsantaha abshir wasiirkaa su-aashaasi ka jawaabaya asad cabdirasaaq wasiiru dowlaha beeraha iyo waraabka soomaaliya waa mahadsan tahay abshir waa su-aal fiican waana rumaysnahay inay su-aashaada meesha ku jirto dadka soomaaliyeed waxay yaqaaneen nidaam dawli ah oo dowlad dhexe oo xoog badan oo central ah oo waddanka oo dhan wada xukunta oo ka jawaabta si degdega uga jawaabta baahiyaha dadka
hadday ahaan lahayd gurmad oo wax lagu gaarsiiyo iyo hadday ahaan lahayd wacyigelinba labadaba nidaamkaas ayay la qabsadeen hadda waa ogtihiin waddanka waa waddan soo kabanaya burbur ka soo kabanaya waa waddan galay 30 sano oo dowladda iyo dadkii ay kala maqnaayeen marka abshir su-aashaas uu keenay waan arrinta uu keenay waa arrin jirta waa arrin laakiin ay mataqaanaa si soo kobcaysa inay dadku aaminaan nidaamkan federaalka ah ee dowladahan isdul saaran ilaa municipal heer dowlad mataqaanaa dowlad hoose dowlad maamul goboleed iyo dowlad dhexe waxaa laga yaabaaba dowladda dhexe oo ay u barteen inay isla markaba jawaabto inay u sii marto dowladda mataqaanaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka waddankan meel mataqaanaa fog buu mataqaanaa ka soo noqonayaa dadkana inay ay aaminaan dowladdooda waa waqti bay qaadanaysaa waa run waaye waana waxay mar walba waxay samaysaa horumar weyn bay samaysaa laakiin waxaa haddii aan ka jawaabo sababta ay waxa se usoo noqon karto is-aaminaadii dowladda iyo dadka waxaa weeyaan waxa loo qabanayo oo mataqaanaa laga dhabeeyo hadday ahaan lahayd dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalkaba waxyaalo badan oo dowladda federaalkii aysan si toos u faragelin karin oo ay usii marayso dowladaha xubnaha ka ayaa jira dadka soomaaliyeedna taas weli lamayna qabsanin baa mataqaanaa aad moodaa marka jawaabta su-aashaas waxay ila tahay inay ay qaabkaas ayaan u malaynayaa sababta dhaawaca u keentay aaminaad darrada dadka iyo dowladdeeda waa mahadsan tahay wasiir ii joog waxaan rabaa inaan dhegaysto kaloo khadka ku jiro diiriya saadiq soo dhawaa xaggee joogtaa iyo su-aashaad qabto barnaamijkan ku taxanahay waan idin salaamayaa adiga iyo wasiirka iyo martida kale iyo dhammaan dhegaystayaasha anigu comment yar baan ka hormarinayaa wasiirkana su-aal weydiin doonaa insha allah horta fariimaha la diro xilliyada abaaraha la diro fariintu markay ku soo aado xilli emergency ah oo aysan ka horreynin yacni muddo xilli hore aanan la sii gudbinin dadku markay marxaladdaas ku jiraan way adag tahay inay xilligaas ay ku dhaqmaan fariimaha aniga sidaan u arko haddaan u gudbo su-aashayda wasiirka wuxuu sheegay in la sameeyey call center ay dadku soo wici karaan marka wasiirka waxaan weydiin lahaa fariimaha ma la raaciyaa oo ma la yidhaahdaa digniinta markii la diro in loo sheego qofka leeyahay wixii macluumaad dheeraada ama hagitaan dheeraada lambaradan kala xiriir oo qofkii uu garanayo hadduusan xitaa barnaamijku uusan dhammaystirnayn ama digniintu dhammaystirnayn meeluu la xiriiro taa qorshaha mayna kugu jirtaa su-aashaan wasiirka weydiin lahaa Catoosh waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay wasiirka wasiir dowlaha beeraha asad cabdirasaaq maxamed ku soco mahadsan tahay deeriye aad iyo aad baa u mahadsan tahay call centerkan waxaa keenay really waxyaalaha keenayba ee loo sameeyey waxaa weeyaan markaanu aragnay baahiyaha jira ee dhinaca wacyigelinta iyo dalku waa dal weyn oo aad loo kala durugsan yahay marka waa qasab in laga faa'iidaysto teknolojiyada la haysto sida mobilekan iyo smartphoneska markuu qofku soo waco bilmatel wuxuu sheegayaa gobolka uu ka soo wacayo magaciisa beerelahay areadu joogo iyo waxyaalaha uu markaa u baahan yahay waxaa laga yaabaaba inay su-aashiisu aysan noqonin wax abaara ku saabsan iyo wacyigelinta noocaasa laakiin ay noqoto cudurro beero oo kusoo cusboonaaday oo intay soo sawiraan weliba ay soo diraan dhahaan calaamahaasaa aragnay laakiin mar walba annagu waxaan kaga faa'iidaysanaa maadaama uu qofkiiba na soo wacay wax allaale wixii fariimo kale ah rabna inaan gudbinno bilmatel haddii aanu ay qofku meeshu degan yahay markuu sheego fatahaadda webiyadii inay soo dhow yihiin oo heerka webiga biyaha ay kor u kaceen waxaan usii raacinaa in ay jiraan suurtagal inuu webiga shabeelle ama jubba areadaas uu ka fataho roobab badan uu soo wado etoobiya ay macnaha ay biyo badan uu soo wado roobab ay etoobiya ka da-een marka wax laala wixii fariimo ah ayaan annagana aan sii dhex marsanaa
marka haddii ay qofka xitaa meesha call centerka fadhiya marka uusan information badan haynin wuxuu usii gudbiyaa waaxaha kala duwan ee wasaaradda beeraha sida waaxda irrigationka tan badbaadada wax soo saarka waxyaalahaas waaxahaas u gudbiyaa maalinka dambena waxaa lasoo fadhiisiyaa khuburo intii nambarkiisa la siiyo wacdo oo follow up ku samaysa marka waa mahadsantahay diiriya waa su-aal aad iyo u fiican mahadsantahay waxaan jeclahay dhowr qof oo ra'yigooda idaacadaha soomaaliya barnaamijkan sii baahiya ka soo dhiibtay inaan halkan ka sheego wuxuu yidhi dhegaystahan doolow oo soomaaliya ayaan jooga haddaan aragtidayda ka dhiibto waxay ila tahay marka bulsho la wacyigelinayo in loo sheego dhibka ka soo gaari kara abaaraha iyo fatahaadaha markaasi way fududaanaysaa inay aaminaan bulshada fariimaha soo gaaraya aragtidaydu waa sidaas ayuu yidhi walaal catoosh aad baad u mahadsan tahay dhegaystahaasi idaacadaha noo soo mariyey fariintiisa ee doolow jooga dhegaysto kale ayaan jeclahay isna inaan raaciyo wuxuu yidhi waan soo dhowaynayaa barnaamijka digniinaha abaaraha iyo fatahaadaha waxaan ku ogaaday buu yidhi oo ku xirnaanta isbedelada cimilada iyo saadaasha hawada iyo quburada ku takhasusay waxaan si buuxda u qaataa una dabaqaa talooyinka una qaataa laba dhegaysi oo warbaahinaha ah sidaasi darteed waxaan ka aragnimo u yeeshay buu yidhi inaan sanado badan ku xirnaado lana socdo isbedelada abaaraha iyo fatahaadaha aad baad u mahadsantihiin dhegaysto kale oo idaacadaha puntland jooga ee barnaamijkan baraarug sii baahiya kala socday waxa uu yidhi waxaan ku noolahay puntland dadka soomaaliyeed fariimaha ay shirkaduhu u diraan ma aaminsana waxayna u maleeyaan wax iskamaalaa yacni ah aad baad u mahadsantihiin dhegaysta haddaad nala socoto adiguna wixii fariin ama su'aal ah ee ku saabsan mawduucan waad nala wadaagi kartaa fariimaha gaaban waxaad noogu soo diri kartaa lambarka 28 eber oo golis ah iyo 395 oo telesom ah sidoo kale 2 eber 23 oo cod ahaan ayaad noogu duubi kartaa fariimahan markaad soo dirayso dhammaan waa bilaash cilmi nuure oo beeraley ah yaan u baaqayaa cilmi nuure su'aashan waxaan jeclahay inaan si faahfaahsan aad noogu jawaabto su'aasha waxay ku oranaysaa beeraleyda iyo xoolo dhaqato beeraleydaba ee ku tiirsan xoolaha iyo dalagga beeraha maxay tahay tallaabooyinka ay qaadi karaan ee macquulka ah marka ay helaan digniinaha khataraha ka digaya horta sidaba saadaal marka laga hadlayo qalabaa loo sameeyey adduunyadu qalab ay samaysatay saadaasha hawada la yidhahdaa roobabka lagu sii fiiriyaa isaga laftiisu wuxuu sameeyaa wax la yidhaahdo percentage 50 60 90 dadka Soomaaliyeed ama jahil ha u geeyo ama ha noqdeen dad si kale u fakaraya marka ugu horeysaba waxaad ogaataa Catooshow iyo wasiirka iyo kulligiin maba u sheegi kartidba waxa laga yaabaa in roobkii sanadkan baaqdo in daruuro waaweyn soo socdaan yaa kuu sheego kuleeyahay adoo qaybka taqaan waxay ogaanaaba waana mawduuc weyn oo dadka Soomaaliyeed aysan ka wada hadlin oo rag ilbax iyo dad magaala iyo dad culummo iyo dad miyi intooda badan percentage 90% ay u haystaanba waxaan ay qayb yihiin in la sii ogaada marka waxay taasu keentay inaadan xataa dhihi karin war mawduucan abaarta waxaas laga baqaya marka waana fariinta sababta loo rumaysan yahay ka mid tahay waxay arkayaan marka oo wixii marka dhacaan ayay qirayaan markaysan intaysan dhicin maba qirayaanba waxa soo haray maxay sameyn karaan dadka waxay sameyn karaan inay wixii wax heli kara oo heli kara inay calaf samaystaan inay sameeyaan wixii heli kara inay xoolaha gataan xilli hore inay gataan xoolaha iska yareeyaan markii ay abaarba la fahmo markii daad iyo duufaano iyo waxaas ay yihiin hadda ayagu waba kuwaas aan kuu sheego saadaasha siibaba maba u sii sheegi kartid oo macnaha dadka Soomaaliyeed waxyaalaha waxa jira ay ka xishoodaan oo aysan isu sheegin oo ku saabsan weatherkan ama satellite-kan wuxuu soo dirayaa fariin ah tusaalaan hadda wuxuu roob ka muujinayaa hobyo iyo meesha la yiraahdo iyo Hargeysa iyo Boosaaso xataa qofka ma dhihi kartid boqolkii 50 ama boqolkii 60 15 bishan Mars waxa dhici karta in roob caadada ka da'o uma sheegi kartid wareeg qaybka nagala tagay shaakadaas ku leeyahay marka waxay dadku sameyn karaan wax ugu muhiimsan intii awoodahay inay xoolaha iska sii gadaan inay maxaan ku yiraahdaa ay calaf u tabcaan inay sameeyaan sidoo kale inay meesha hadda markaas ay degan yihiin xilli aysan guuri karin ay hadda sii guuraan oo meel kala degaan oo meel
ay sahansadaan meel ka roon waxyaalahaas oo dhan way samayn karaan marka laakiin inta badan cimiladii inay isbedeshay dadka Soomaaliyeed maba rumaysnaba amaasanta dadka hadda nagu soo biiray ku soo dhawaada doodeena baraarug oo aan caawa uga hadlayno dadka maxaysan u aaminin waxaan jeclahay shaqadoon Ahmed isla su'aashaas cilmi nuur aan weydiiyaan jeclahay beeralayda iyo xoolo dhaqatada dabcan dadka lama caamishaanay fariimaha gaarsiisanayna ka mid yihiin maxay tahay talaabooyinka u bannaan inay qaadaan macquulkana ah marka ay helaan digniinaha way cabdisaaqo aad baad mahadsan tahay markaana waa salaamaya khiyaarta iyo dhegeystayaasha labadaba waa run oo inta badan dadka xoolo dhaqata beeralayda ahi waxay helaan fariimo la xiriira saadaasha ama ha noqoto dhinaca digniinaha abaaraha ama ha noqoto mid ku wajahan dhinaca fatahaadaha inta badanna fariimahaasi haddii ay noqdaan kuwa cadcad dadkuna ay aaminaan waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay inay qaadaan ama talaabooyinka ugu muhiimsan ay tahay inay qaadaan horta waa inay bulshadu dhexdeeda ay is-abaabusho markii hore doodeena qayb ka mid ah ayaa waxay ku soo jeediyaashu waxay ku taabanayeen arrinta la xidhiidha dhinaca haynta dhaqaalaha oo inta badanna ah caqabadda ugu weyn ee haysata dadku inta badan ama xoolo dhaqata beeralayda ah in aanay duruufuhu u saamixin marka ay helaan xitaa fariinta in deegaanka ay joogaan ama ay ka guuraan ama ay xoolahooda la aadaan meelo kale oo ay uga heli karayaan baad iyo doog iyo biyo ay uga heli karayaan inay la aadaan iyadoo ay sababayso duruufaha ama tusaale ahaanba xataa haddii xoolahuba ay waayaan waxay cunaan oo daaqsin ay cunaan ay waayaan iyada laftigoodana waxaa adkaatay inay xooluhu meelo dhaadheer ay aadaan duruufahaasi marka inta badan waxay caqabad ku noqdaan in aanay inta badan xoolo dhaqatada iyo beeralayda labaduba ama xoolo dhaqata beeralaydu marka la isku daro in aanay fariinta ay heleen hore ugu diyaar garoobin laakiin waxyaabaha inta badan ugu muhiimsan ay tahay bulshadu inay samayso marka koowaad waxa weeye inuu abaabulka bulshada dhexdooda ka bilaabmo sababtan sidaa u leeyahay waxa weeyaan bulshadu way is og tahay kuwooda nugul iyo kuwooda aan nuglayn iyaga isaga aqoon badan inta badan hay'adaha taageerayaasha bixiya ama maaragtay hay'adaha dawladda marka deegaanada ka howlgala laakiin dadku dhexdooda iyaga og sida isu maaragtay u kala nugul yihiin iyaga og sida ay abaarto maaragtay ama daadadku ay u kala saameyn og yihiin iyaga og haynta qoysaska maaragtay deegaanadaas ku nool marka talaabada koowaad horta bulshadu ay tahay inay qaado marka ay fariimaha helaan digniinaha bixinaya waa in ay dhexdooda is abaabulaan oo abaabulkaasina uu noqdo abaabul hage u noqonaya talaabooyinka xiga ay qaadayaan talaabada labaad ay tahay inay qaadaan dadka deegaanada degan inta badan ama fariimaha si ay ku wajahan yihiin waa in ay helaan bedelka meesha ay kaga badbaadi karayaan ama ay ugu badbaadi karayaan xoolahoodu waa inay sii yaqaanaan oo ay sahan samaystaan haddii ay xoolo leeyihiinna waa inay sahan dirto waxaan jeclaa dhegeystayaasha dooda baraarug ee isbuucyadan la socday inaan ku wargeliyo maadaama 10kii dambe ee ramadaanka la gelayo ciidana ay soo dhowdahay talaadada soo socota inaan hakin doono barnaamijka kaasoo mar kale aan ku soo noqon doono hawada 24 bishan mar kale aan ku celiyo doodaheena baraarug een kaga hadlaynay digniinaha loo diro Soomaalida marka fatahaada ay socdaan talaadada soo socota waxaan u jeedin doonaa maalinta ciidda darteed iyo dabaaldega waxaan ku soo noqon doonaa hawada mar kale 24 bisha oo ah talaadada soo socota midda ku sii xigta aad baad u mahadsantihiin